xirfaqayga waxaan ku ammaanaa sharciga dhanba iga ahay waxay ahaayeen maxkamadaha iga ahay qoraal ii ka ahaayeen markii wax la kala wareejinaya ii ka carabiga ku qori jiri. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن توعنا ونكسن لما خيار تشرفت له كحيران شنال كنا بندر ميديا بندر بنادر وجنا الله ترجلي دون مرياش دون الصومالي مركز تجوجان بندر مركز على شخصها مساكين تدبات يسن وحقوق كما قيا الله سبحانه وتعالى يعني كبرنا عد كست ظلمن وحقوق كما قام الله سبحانه وتعالى حق صاره إن شاء الله تعالى. أنت كدب وحبنا هنا ليس جودنا برنامج خاصة أنا قلت لك قلنا warbixin guud inaad ka siino masjidka la isku haystay ama dhulka la isku haystay ee ku yaal xamdalka degmada Xamarweyne masaajidka jaamac Xamarweyne insha Allah. walaalayaal sidaan hore idinku sheegay idinkaga ballan qaaday inaan idin soo gudbin doono barnaamijkii dhismaha dhulkii la isku haystay ama dhibaatooyinka la isku geystay inaan barnaamij idinkaga soo gudbino waxaynu idin ballan qaadnay inaan dabagal dheer aan ku sameyn doono si aan u ogaano xaaladda dhulkaasi heerku marayo waxaanu ilaahay noo fududeeyay inaan helno nuqul ka mid ah nuquladii maxkamadda gobolka Banaadir qaybteeda madaniga ah warqad ay ku ansixinaysa dhulkaas inuu yahay dhul وقف إنه يهي أما دول دنت جود لو قلت لك إنه يهي يعني سو جاري سيد هبيه رأيين شجناي ورخدان دعوة أي أهد والله وقفوا ولا لا اسكت دعوين أيين دول كاس أنا إسكالي لا واز قفوا بحكي لا أهين reer xaaji Cabdulqaadir oo dacwada ahaa iyo oo wakiil noo ahaa Bashiir Xaaji Maxamed iyo Maxamed Xaaji Xuseen Cabdalla oo asal dacweysana ahaa dacwadaasi waxa la xareeyay 11 bishii 11aad 2015 ayaa la xareeyay dacwadaasi kadib dacwadaasi waqti ayaa la siiyay maxkamadda dhageysi badan ayay sameysay falanqeyn badan ayay sameysay kadib waxa ka soo baxay nuqul ah warqad 3 page ka kooban oo ugu dambeeyay warqadda qaybta ugu dambeysay aan idin hayaa insha Allah ta'ala warqadaas walaala ayaa ina soo gaarsiiyeen warqadda xukunka ayaa idin soo qabanaya xukunka maxkamadda ay ku xukumisay ayaa wuxuu ku yaalay maxkamadda gobolka Banaadir markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan dhageysatayna dooda dhinacyada dacwooyinka ka dhaxayso waxayna xukuntay in dhulka ku yaala degmada Xamarweyne laanta gabanimo gaar ahaan waqooyiga masjidka jaamaca ee Xamarweyne uu yahay dhul dan guud أي محكمة دكتور حكم مسي إن سيدا درتها محكمة دوحة شاكتة إن لو استعمال كرن وحندن دقوت أهان أسر كيسورنا دكسو أهان جري إن شاء الله تعالى كل إيران معي برامج كاس أو أسيغو تفتران أنا أقول أملي هي من أخانا قابكي أهان جرتي لكن رادس كان رادي وحدن تيجي أهاد إن أوغانو وحعت إن أوغانو وحن إي صورة تجاش إن أنا هلا ولكن أبهنا شريف جيك أي برامج كاسيس أي قدوة تفتران فيلن كان قروح بدن نوسو الدياري إن شاء الله تعالى asaga ayaa idinku wareejinaya warbixinta guud iyo qaabka dhulka loo la kala lahaa iyo insha Allah ta'ala walaal baab Shariif fadal salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw bandar media barnaamijkaaga sharaxaadiisa hor noogal insha Allah ta'ala السلام عليكم بندر تي في والسلام عاوض وحوي حقيقة كهذا وحوي دول مساعدك أصل كيسة ومساعدك الله هاي waxaana loogu talagalay masaajidka hadduu noqdo 3 biyaanada hoos oo godka ku jiro biyaanada kala dhaxda iyo tan kora meeshii ka soo bixilay dariishadaha qoraxda badan meeshii ka soo bixileed way khibladii way meeshii lagu abuuri lahaa way fiyooraha iyo masaajidka qoraxdiisii ama meeshii mindhaarada labada mindhaara ama waxaas laga dhisi lahaa way ما حدا للدولة مساعد إن مساعد عصر لقى دقل الروا وحواي ماشي أو لقى دقل هاي دريشوينك يمشي مساعد كان يفصل هاي واي إن هو تقول له وصول دجيو أو حلا دكتو ما أنفعايو دول كان مساعد كأصل كيس صار هاي مركي سكول كلقى دقاينه أصل كيس وحلوي دستمام مساعد كا أفر حمر علوم ضد والسكول راعي سكول على دقة مدرسة العزال ديجي قبلها دقة جيرين وحان الله تلقى قبلها مقابية ده 8 جركة 6 جركة 9 جركة 8 جركة إنا يدكتان نينك دقاي وحو أهاي نين يمنياس أهاي
ciisaa la dhihi jiray director general waxaa ka ahaay mac xuseen aabiisi xaaji xuseen wuxuu qori jiray caruurtaasaa qori jiray xafiiskaasaa joogay adduunya si kastaba ha ahaato taariikh dheer ayaa laga soo maray iskuulkii waa burburi dadka taariikhda haayo oo maanta aan dhihi karo iyo karbaanoo kale ayaa maanta adduunka ku sugan oo nool laayacoo kalaa nool waxaan kugu dhowayaa dadka banaandiriyaha dhabta ah oo xalaasha ah aan qabiilka shaqadooda ahayn weligoodana dadka ku dhex jiri waa laayac iyo karbaana taariikhda si fiican ay u hayaan marka aniga waxaan ka yaabanahay dhulkan oo hadda lee soo baxay oo warqadihiisa hadda lee la helay oo hore la ogeen maxuu yahay dhulkan waa dan guud dowladdii markii aragtay heer faqriga waxaan ku ammaanaa sharciga dhanba iga ahaay waxay ahaayeen maxkamadaha iga ahaay qoraal ii ka ahaayeen markii wax la kala wareejinaya ii ka carabiga ku qori jiri ii kaa markhaatiyaal ka qori jiri hadday ay rabaan inay meel ay boowaan dirisoonka banaadirkay boowi lahaayeen marka isriixriixii oo dhulkan waxaa soo baxay xaqa waa soo daahiri maxkamaddaa xaqii soo daahirisa ilaahay subxaana qaadirka ayaa ma arkino masaa'idkii ilaahay lagu tuugaayo oo qashinka lagu qowaayo oo 2 sano qashinka yaali urka meesha markii la maraayo way fiiri jireen qaarkooda kuwan hadda dacwoonayo way arki jireen hadday dhulka ay leeyihiin qashinka maxay ugu qaadi waayeen hadday dhulka iyaga ay leeyihiin dadka abuulasha ka dhisti maxay ugu kici waayeen maxay u diidan yihiin anay ma garanin masaa'idka ha laga badbaadiyo qashinkan qurunkan meesha lasoo dhigaayo halaga magaciisa halaga waxeeye maxay ku diidan yihiin ani waa gari waay masaa'idka may kontar ku yihiin waayo meesha waxaa lagu gadaa wax kastaa lagu gadaa ilaa waxaa ka dhisan 7 dukaan oo waaweynaa ka dhisan oo abuul ah dadka meesha degan ma la hadli karaan ataa laakiin walaalahooday la hadli karaan waxaan dhihi lahay dadkan dulmiga ku socdo ha loo sheego io karbaano waa nool yahay adduunyada isku sugan yahay intii as nool yahay taariikhda asoo hadlo runta asoo sheego meeshaan waxiis ahaa jiri waa la soo socdaa maanta waa la socdaa asiga 90 jirkayna waaye waxaa nool odaygii oo iskaashati oo sheekh muumin oo ahay taariikhda waa la socdaa asoo hadla ilaahay ka cabsado waxaa nool ninka la yidhaaho aashiikh waxaa macalin dugsi waaye taariikhda si fiican asu haayaa hasoo hadlo waxaa nool ninkii la dhahay magaciisi dheere xaaji dheeraa nool xaaji waa soo xijii weli waxaas laku sugan yahay meesha oo laisku haysto dhinaciisa isku sugan yahay asna asoo hadlo hal isku daynin xaqa a laga hadlo maalinta qiyaamaha waa nila weydinaa ma waayo masaa'idka oo ujeeda qurankiisa waad aragteen baktiga lasoo dhiga waa aragteen wixii dhintii oo dhan meeshaa lasoo dhigaayay wixii cafaayad meeshaa lasoo dhigaayay meeqa sano 2 sano qashinaa lasoo dhigaayay qashinkiisi loo bixiyo waa aragteen nadaafadda si loo shaqeeyo waa aragteen intaasoo beri ayaa laga shaqeynayay war ilaahay ka cabsada dadka waaweyn odayaasha 90 jirka oo weli adduunka ku sugan xaqa a ka soo hadlaan wallaahi maalinta qiyaama su-aashaas waa nila weydinaa war dadkan oo hadda dhahaya meeshaan anakaa leenahay bal runta uu sheega meeshaan inay iiga lahayn oo meesha uu yahay dhul qaranna uu yahay dhul danguud inaas yahay dhul masaa'idka leh inaas yahay haddaa dhaha masaa'idka malaha ataa haddii siraaho masaa'idka 2 meter iyo bar masaa'idkaa leh 2 meter iyo barkii leh ha loo oodo qashinkan iyo qurunkan lasoo dhigaay ha laga badbaadiyo dadka diidan ha loola soo hadlo iyo karbaano waa nool yahay doctor laayac waa nool yahay waxaa nool ashiiqa waxaa nool magaciisa xaajigaa nool oo
iskaashatay dhan odayga u ah markaas xaaji abuukar waxaa nool dheeraa nool xaaji dheeraa nool waxaa yeelaysaa alla soo hadlo ilaahay laga cabsado alla soo hadlo runta alla sheego asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan filaya inaad ka wada bogateen waxaan jeclaan lahaa insha allahu tacaala barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey filinka aadka quruxda badnaa ee aad arkayseen dhismihii meesha ku yaalay sida loo dudumay iyo siday ahaan jireen iyo qaabkii loo deganaan jiray baaba shariif ayaa noo sharaxay insha allahu taala ciddii doonaysa inay warbixin kale ayagan ay haysaa injir bandar media idinka ay idin dhexaysaa cid ee la jirta ma lahan waad soo gudbisan kartaa aaraadaada afkaartaada insha allahu tacaala albaabadu way idin furan tahay telefoonada meeshaas ayay hoos iyo ku yaalaan waxaan aad iyo aad jeclaysanayna aan jecelnahay in walaalaha reer banaadir inay bidoowaan iska ilaaliyaan tafraaruqa iyo dhibaatada iska ilaaliyaan lianna hore ayaa naloo soo baabi'iyey dhibaatooyin badan ayaana soo gaaray hadda waxay ku qurux badan tahay in haddii xoogaa waxaan isku qabqabsano in isla markiiba aan oblos gareyno ama isla markiiba aanu joojino si guul loo gaaro laakiin haddii maanta adigana warkaaga aad qaab ka dhigid ana qaab ka dhigto maanta dhan ay socoto qiila waqaala ah wadno xoogaa waxaad moodaa inaan dhibaata ayna soo gaarayso insha allahu tacaala waxaan rajeynaya walaalayga reer banaadir si ay wada yihiinba in walaaltinimada laga shaqeeyo ودلمي اللي سكي إن شاء الله تعالى أنت يا برامج كنكسو قبل قبينيا ولكن محمد حاج أمين هذيك الله سبحانه الله ذلك النذرلان مقالة نايم قناة إذن له ما أنت إذن ورحمة الله هذيك إذن وعنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.